wareegtadan waxay ku saabsan tahay soo celinta kusimaha iyo diblomaasiyiinta kale ka howlgala safaaradda Soomaaliya ee Khartoum Suudaan oo ay ku jiraan halwadeennada kale oo iyaguna ka mas'uulka hay'adaha kale ee dawladda sida wasaaradda tacliinta, wasaaradda ganacsiga, wasaaradda amniga, xafiiska immigration, xafiiska jinsiyadaha iyo socdaallada. qof kasta oo safaaradda Soomaalida ee Suudaan ka howlgala ayaa la amray, la faray inay dhaqso u soo noqdaan. Arrintaasi waxay daba socotaa amar uu ra'iisul wasaaruhu bixiyay kadib markii uu booqashadiisa ugu dambeeyay ee Suudaan uu u kuurgalay shaqada maaragtay safaaradda ka socota, uuna dhageystay warbixinno ay shacabka Soomaaliyeed, ardada Soomaaliyeed ee Suudaan joogta ay siiyeen marka iyadoo la tixgelinayo talada ra'iisul wasaaraha, codsiga ardada iyo dadka Soomaaliyeed ee Suudaan jooga ayaa waxaa wasaaraddu ay faraysa dadka diblomaasiyiinta Soomaaliyeed ee Suudaan jooga ka howlgala iyo dadka safaaradda ka howlgala oo dhan inay ku soo noqdaan wasaaradda. waxaa sidoo kaleeto la magacaabay kusime safaaradda iyo kusime ku-xigeen si ay u sii wadaan howlihii safaaradda.